ku soo dhowow Somali Magazine qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah Israa'iil oo shaaca ka qaaday inaysan weerari kareynin dowladda Iran ilaa inta ay jiraan 3 kooxood oo kala duwan. Macluumaadka ku saabsan markabka dagaal ee dowladda Mareykanka ee u soo dhaqaaqay biyaha dhanka bari ee Mediterranean-ka maxay tahay xiisadda cusub ee soo kordhay. Dowladda Turkiga oo sheegtay inaysan joojin doonin hubka ay ka iibiso dowladda Ethiopia. Wadahadallada dhanka telefoonka ku dhex maray madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka iyadoo ay sii xoogaysanayaan dagaalada ka dhacaya waqooyiga dalka Ethiopia ayaa dowladda Turkiga waxay ku dhawaaqday inaysan joojin doonin hubka ay ka iibiso dowladda Ethiopia. Arrintu waxay ka dambeysay kadib markii cadaadis xooggan iyo baaqi loo soo jeedinayo dowladda Turkiga taasi oo ku aadan inay joojiso diyaaradaha droniska ee ka iibinaysa dowladda Ethiopia kuwaas oo dhanka kale u weeciya dagaaladii ka dhacayay waqooyiga dalka Ethiopia. Qoraal ka soo baxay dowladda Turkiga ayaa markii ugu horreysay waxaa lagu sheegay in aysan marnaba joojin doonin hubka ay ka iibinayaan dowladda Ethiopia isla markaana heshiis kasta oo ay dan u arkaan ay la geli doonaan dowladda Ethiopia. Diyaaradaha droniska ee dowladda Turkiga ee Bayraktar TB2, diyaaradaha dagaalka ee dowladda Iran iyo kuwa Shiinaha ee Imaaraadka Carabta u geeya saldhigyada ciidanka militariga ee dalka Ethiopia ayaa dhinaca kale u rogay dagaaladii ka dhacay waqooyiga dalka Ethiopia, horseedayna in laga adkaado jabhaddii TPLF ee mar ku dhowaatay qabsashada magaalada Addis Ababa sida ay marar badan bay warbaahinta u sheegeen. Dowladda Mareykanka iyo dowladaha kale ee taageersanaa xulafada jabhadda TPLF ayaana walaac xooggan ka muujiyay diyaaradahan maadaama TPLF aysan haysanin raadeerada ugu yaraan u sahlaya inay ka hortagaan weerarada ka imaanaya dhanka cirka ay geysanayaan ciidamada cirka ee dowladda Ethiopia iyaga oo kaashanaya diyaaradaha droniska. Diyaaradahan ayaa lagu xasuustaa weeraradii xoogganaa ay ka geysteen deegaanada dhaca gobolka Amxaarada iyo sidoo kale gobolka dhanka waqooyi ee Tigreega kuwaas oo horseeday inay gebi ahaanba ciidankii jabhadda TPLF ay isaga baxaan magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dhanka waqooyi ee dalka Ethiopia. Hadda Turkiga wuxuu shaacu ka qaaday marnaba inaysan joojin doonin hubka ay ka iibinayaan Ethiopia isla markaana heshiis kasta oo dani ay u arkaan ay la geli doonaan dowladda Ethiopia. Bishii Agoosto ayaa heshiiskan uu dhex maray labada dowladood ee Turkiga iyo Ethiopia kadib markii ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed uu booqasho ku tagay magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga halkaasina uu kula kulmay madaxweyne Erdogan. Sida ayaad u aragtaa hadalkaasi? Aragtidaada qaybta hoose ku reeb markaana aan eegno. Taliska guud ee ciidamada gumaysiga Israa'iil ayaa qirtay inaysan awood u lahayn xilligan inay weerar ku qaadaan Iran iyaga oo sheegay inay isku diyaarinayaan dagaalka saddexda ay ku hareeraysan Tehran sidoo kalena aadka u taageera taas oo ka dhigan 3 kooxood oo taageero ka helaya dowladda Iran. Jihooyinkaasi ayaa waxay kala yihiin ururka Xisbullah ee ka dagaalamaya waqooyiga dalka Lubnaan, ururka Xamaas ee ka dagaalamaya marinka Gaza iyo sidoo kale Suuriya iyo sidoo kale dhinaca kale ay ka cabsi qabaan oo Xuutiyiinta Yemen ka dagaalamaya. Sidoo kale Israa'iil ayaa waxay cabsi ka qabtaa haddii ay weerarto xarumaha nuclear-ka ee dowladda Iran inuu dagaal uu uga furmo 3daasi furumood kuwaas oo xuduud la leh aadna ugu dhow Tel Aviv marka laga yimaado Yemen, awoodna u leh inay gantaalle ku harqiyaan dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil. Maab ama qariiro dhawaan la soo bandhiga ayaa muujinaysa in Israa'iil haddii weerar ku qaado xarumaha nuclear-ka ee dowladda Iran maalintii ay martigelin doonto in ka badan 3,000 oo gantaal oo kaga imaanaya kooxaha kala duwan ee dowladda Iran mar hore ay ku sii tallaashay dalal dhowr oo ku yaala wadamada Carabta. Sidoo kale warbixintu waxay tilmaamaysaa in Israa'iil si degdeg ah u iibsatay gantaalada ka hortagayaasha ama interceptors loo yaqaano ee difaaca dhanka cirka. Waxaa kaloo ay sare u qaaday diyaargarowga ciidamadooda dhulka si ay uga hortagaan dagaalada 3daasi jiho ee ugu yaraan ka hor imaan karaya ciidanka Israa'iil. Sidoo kale warbixinada sirdoonka Israa'iil ay heleen ee ku saabsan nuclear-ka dowladda Iran waxay xuseen in xukuumadda Tehran ay suuragal ay tahay in labada sano ee soo aadan ay ku samaysato 2 bam oo nuclear ah, laakiin xitaa haddii ay haysato 5 bam oo noocaani ah kuma degdegi doonaan adeegsigiisa sida falanqeeyaasha ay aaminsan yihiin. Dhinaca kalena mid ka mid ah wargeysyada afka dheer ee ka soo baxa gudaha Israa'iil ayaa shaaca ka qaaday in maamulka madaxweyne Joe Biden uu diiday in la dedejiyo oo Israa'iil lagu wareejiyo diyaaradaha xamuulka qaada ee shidaalka hawada ku siiya diyaaradaha dagaalka si ay ugu fududaato howsha duqeymaha xarumaha nuclear-ka ee dowladda Iran. Wargeysku waxa uu sheegay in wasiirka difaaca Israa'iil Benny Gantz uu kala hadlay xukuumadda Washington toddobaadkii hore khatarta nuclear-ka ee dowladda Iran iyo inay lagama maarmaan ay tahay in si degdeg ah tallaabo militari looga qaado. Waxaa kaloo intaasi lagu daray in Gantz uu sheegay Mareykanku in Israa'iil isku diyaarinaysa tallaabo militari si walba oo ahaataba. Kadib markii Israa'iil ay bilowday isku diyaarinta tallaabo militari oo ka dhana dowladda Iran, balse tallaabada uu maamulka Biden uu dib ugu dhigay ayaa loo fasiray inaan lagu degdegin tallaabo militari gaar ahaana inta uu socdo shirka u dhaxeeya Iran iyo dowladaha kale ee reer galbeedka ee looga hadlaya arrimaha nuclear-ka Iran.
diyaaradda noocani ayaa u ogolaanaysa daraasiin ka mid a diyaaradaha israa'iil inay intay hawada ay ku jiraan 12 saacadood masaafo dhan 11,000 oo kilomitir ay jiraan markaasina shidaal ay hawada ay ku helaan waxaana muhiim ah in howlgal kasta oo ka dhana dowladda iiraan sidaani loo adeegsado. wargeyska oo soo xiganaya ila wareedyo militari ayaa sheegay in ciidanka uu rajeynaya in maraykanka uu ogolaado in la dedejiyo keenista 2 diyaaradood oo noocaasi ah. dhinaca kalena dowladda turkiga ayaa maalintii shalay waxay shaacay ka qaaday inay wareejisay hoggaanka ciidamada gurmadka degdega ee gaashaanbuurta nato kuwaasoo dowladda turkiga ay hoggaankii u haysay sida lagu sheegay qoraal maalintii shalay ka soo baxay dowladda turkiga iyo sidoo kale taliska gaashaanbuurta nato. ciidamadan ayaa hoggaankooda waxaa lagu wareejinayaa dowladda faransiiska waxay ka dambeeya 1 bisha January 2022 ayayna hoggaanka hayn doonaan. xogayaha guud ee gaashaanbuurta nato Jens Stoltenberg ayaa shaaca ka qaaday in ciidamadan ay yihiin kuwa door weyn ka ciyaaraya difaacidda wadamada gaashaanbuurta nato iyo xulafadooda. waxa uu shaacu ka qaaday in xilligan loo baahan yahay inaanan loo arkin caqabad dhanka ammaanka ah go'aanka dowladda turkiga ee ku aadan wareejinta taliska ciidamada maadaama la wareejiyo sanadkiiba. waxa uu kaloo uu sheegay in ay diyaar u yihiin mar walba inay difaacaan oo ay ilaaliyaan dhammaan xulafada gaashaanbuurta nato. ciidamadan waxaa la aasaasay sanadkii 2014 iyada oo laga jawaabayay weerarkii dowladda ruushka ee ka dhankahaa gobolka Crimea ee dalka Ukraine iyo dhibaatooyinkii bariga dhexe. waana ciidan ka kooban 40,000 oo askari kuwaas oo mar walba diyaar u ah heeganna ugu jira in la geeyo goobaha kaalmada ay kaga baahdaan wadamada gaashaanbuurta nato. dowladda turkiga ayaa hoggaanka ciidamadan hadda ku wareejisay faransiiska. wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda maraykanka ayaa talaadadii lasoo dhaafay amar ku bixisay in markabka USS Harry Truman uu u dhaqaaqo badda dhanka bari ee Mediterranean-ka si niyadda loogu dejiyo xulafada Maraykanka ee reer galbeedka iyaga oo ka cabsi qaba in duulaan dhanka Ruushka uu kaga yimaado marka Ukraine la aado. xogayaha difaaca ee dowladda Maraykanka Lloyd Austin ayaa amar ku bixiyey in markabka dagaal ee diyaaradaha xambaare ee USS Harry Truman uu u sii jeesto gobolka isla markaana dib loo dhigo safarkiisii loo qorsheeyay dhanka bariga dhexe. isbeddelka barnaamijka wuxuu ka tarjumayaa baahida loo qabo joogitaanka joogtada ee Yurub waana lagama maarmaan inaan u xoojinno xulafadayada iyo la howlgalayaasheena sida nooga go'an difaacidda guud ayuu yidhi sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Maraykanka. tallaabadan ayaa imaanaysa inkastoo Maraykanka iyo Ruushka ay isku afgarteen in 10 January wadahadal ku saabsan amniga Yurub iyo xiisadda Ukraine uu ka dhaco magaalada Geneva ee dalka Switzerland. markabka lagu magacaabay USS Harry Truman ayaa horaantii bishan December ka soo kicitay saldhigga ay ku leeyihiin magaalada Norfolk ee gobolka Virginia ee dalka Maraykanka. isagoo ku guda jira howlaha qorshaysan waxaa toddobaadkii hore si wada jira dhoolatus uu la sameeyay ciidamada badda ee Tunisia ka hor inta uusan u dhaqaaqin dhanka bari. maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa xoogga saaraya in si dhow loola shaqeeyo xulafada reer Yurub. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu beeniyay inuu qorsheynayo weerar in lagu qaado dalka Ukraine isagoo sheegay in dhaqdhaqaaqyada ciidamada Ruushka ujeedadoodu ay tahay in Ruushka ay ka difaacaan faragelin kasta oo militari oo kaga imaanaysa dhanka iyo wadamada reer galbeedka. madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa telefoonka kula xiriiray dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin maanta oo Khamiisa waxay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin dhanka diblomaasiyadda, dagaalada iyo xiisadaha ka taagan Ukraine iyo Ruushka iyo arrimo kale oo dhowra. qoraal Arbacadii ay soo saareen golaha ammaanka qaranka ee dalka Maraykanka afayeen lagu magacaabay Emily Hornin oo warbaahinta la wadaaga ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Joe Biden arrimaha diblomaasiyadda, xiisadda iyo cabsida wadamada Yurub iyo arrinta la xiriirta kobaca militariga dowladda Ruushka ee xuduudda Ukraine uu kala hadlay madaxweyne Vladimir Putin.